Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Asxaabta iyo walaalaha aga daawanaya halkan. Maanta qorshahayga ma aha inaan barnaamij idin soo jeediyo ama xalaqadii aan idin soo jeedin jiray. Kaliya waxaan rabaa inaan wax yar ama laba kelmadood aan idinla wadaago. Marka hore horta Ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaantiina inuu walaalihii geeriyooday ee qaraxii Zobe ku geeriyooday inuu u naxariisto jannadiisa ka waraabiyo. Dabcan geerida waa mid dadka dhan ay u dambeyn doonaan, waa laga kala horeeyaa marka Ilaahay waxaan rajaynaynaa aan ka baryaynaa inuu acmaashooda aqbalo, jannada uu ka waraabiyo. Sidoo kale dhammaan dadkii ku dhaawacmay Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah iyo bogsasho degdeg ah Ilaahay waafajiyo. Insha Allah wayna fiicnaan doonaan Ilaahay idankiis. Marka meeshaas aan u gudbo waxaan u mahadcelinaynaa ama bogaadinaynaa oo abaal iyo ixsaan iyo qadarin iyo qiimo badan u haynaa dhammaan walaalihii social media dadaalka ka waday, wacyigelinta, wargelinta, fariimaha dadka la wadaagayay, ka shaqeynaya, hawshaas u taagnaa habeen iyo maalin, ilaa haddana u taagan. Waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu ajar ka siiyo acmaashooda. Sidoo kale dhammaan walaalihii dhiigooda, waqtigooda, xoogooda, lacagtooda bixiyay, ayagana Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ka abaalmariyo jazihiisa maalin garab iyo hiil qofka u baahan yahay. Midda kale warka badan ma rabo inaan sheego. Weli garab istaagii iyo caawinaadii way socotaa. Waxaan rajaynayaa insha Allah in si wanaagsan caafimaad ku dhamaado dadka xanuunsanaya isbitaalada ku jira hadda, inay Ilaahay bogsiiyo si degdeg ah. Garab istaagan iyo wadajirkan hadda dhalinyarada bulshada ay muujinaysana inuu sii noqoto wax aan duruus badan ka baranayno, taas oo aan ka dhex baran karno inaan mar walba isgarab istaagno, mar walba is caawino. Dhibta markay dhacday iyo markay dheef jirtaba aan garab iyo gacaltooy isu ahaano. Marka meesha ugu gudbo waxaan rabaa inaan talo yar ku daro. Markay imtixaanada camal dhacaan, mashaakilka ugu horeeya dhacay waxaa ka mid ah Muqdisho iyo magaalooyinka qaarba waxaa dhaco dadka hagid la'aan dhacdo. Sababtoo ah mushkilada markay dhacdo waxay u baahan tahay dadkii inay is abaabulaan, waqti qaadanaysa, gurmad degdeg ah waa loo baahan yahay. Marka magaalada waxaa ka jiro degmooyin ka jiro xaafado dhalinyaro. Marka dabcan si oo looga baarandego mar walbo aan loo baahanin in waqti loo lumiyo. Markii walaal uu baahay qabo dhiig, walaal uu baahay qabo caawimaad, si looga maarmo in waqti la lumiyo, waxaa loo baahan yahay inay jiraan ururo dhalinyareed oo gurmadka iyo howlahaas ka shaqeeyo oo lambaradooda diiwaan gashan yihiin. Degmada ha ka diiwaan gashanaadaan ama ururada kale dhalinyarada magaalada ugu waaweyn ha ka diiwaan gashanaadaan. Hadhow meesha ugu yar markii culays dhaco isla markiiba dadka hawsha bilowga hore samayn karo ilaa gurmadka ballaaran uu ka imaanayo. Taasina wax badan ayay taraysaa sanqabo. Marka maalin dhaweydna ayay baahidaas u jirtay maalinka koowaad maalinta Sabtidii waxa ay qarax u dhacay. Marka waan rajaynayaa insha Allah in casharo badan laga baran doono maadaama horey culays badan iyo imtixaan badan ay bulshadu soo martay oo sidaan oo kale la mid ah. Marka dhalinyarada abaabulkooda, dadaalkooda way socdaan insha Allah, waana la jirnaa, garab aan u nahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in uu Ilaahay imtixaankan iyo culayskan halkaan nooga ekeeyo, xal iyo faraj degdeg ah aan soo noqon lahayn oo amni iyo ammaan aan ku helayn Ilaahay na waafajiyo. Waxaan rajaynaynaa khayr. Ilaahay waxaan ka baryaynaa nabad iyo naruuro iyo ammaan. Waxaan idin rajaynayaa khayr. Aadaan u mahadsantihiin. Wasalaam.